magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inteeda badan ayaa waxaa si weyn looga maqlay xilligii salaada subax joogta qaraxyo culus kaas oo dadka ku nool magaalada muqdisho ay si weyn u dareemeen isla markaana cabsi weyn ay ku abuurtay wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxyo lagu xiray qaar ka mid ah kaamirooyinka ee hay'adaha amniga Soomaaliya ku xireen wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama si ay amniga guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho ay uga qayb qaataan xilliga ay dhacayeen joogta qaraxyada ayaa waxaa markii hore dadka ku nool magaalada muqdisho ay u maleynayeen hoobiyaal ku soo dhacaya xaafado ka tirsan muqdisho ha yeeshee markii uu waaga bariyay la ogaaday in la qarxiyay qaar ka mid ah kaamirooyinka lagu xiray meelo ka mid ah wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada muqdisho laguna burburiyay sida uu sheegay qof ka mid ah dadkii saaka tagay goobaha markaasi kaamirooyinka ay ku xirnaayeen ee qaraxda lagu burburiyay dadka ayaa qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama saaka markii uu waaga bariyay ku xumay isla markaana waxa ay qaarkood sheegeen in indhahooda ku arkeen qaar ka mid ah kaamirooyinkii hay'adaha amniga Soomaaliya ay ku xireen wadooyinka qaar la burburiyay isla markaana qaraxyo lagu xiray goobaha wadooyinka ee lagu xiray kaamirooyinka ayaa waxa inta badan bar control oo gaadiidka lagu baara ku leh ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ha yeeshee aan la ogeyn sababta keentay in kaamirooyinka qaraxyo lagu xiro lana qarxiyo isla markaana qaraxyadaas lagu burburiyo laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wax war ah kama soo saarin kaamirooyinka la qarxiyay waxaana saaka si caadi ah u shaqeynaya gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee wadada Maka al-Mukarrama ay ku xirnaayeen kaamirooyinka la qarxiyay ma jiro wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay qaraxyo lagu burburiyay kaamirooyinka ha yeeshee warar qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in goobo ganacsi oo ka agdhawaa goobaha markaasi kaamirooyinka ay ku xirnaayeen ee la burburiyay ee waxay la soo gaartay inkastoo aysan burneyn dad badan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa in badan wax iska weydiinaya sababaha keenay in kaamirooyinkaas qaraxyo lagu xiro iyadoo inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ay buux dhaafiyeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo gaadiidka noocyadiisa kala duwan baaritaano kala duwan ku sameynaya ha yeeshee saaka waa berigii hore la maqlay qaraxyo waaweyn oo lagu burburiyay kaamirooyinka kuwaas oo la sheegay inay amniga si weyn uga qayb qaadanayaan sidoo kalena magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si weyn looga dareemay wadada Maka al-Mukarrama oo kaliya kuma xirna kaamirooyinka inta badan wadooyinka muqdisho ayaa lagu xiray waxaana sidoo kale hay'adaha amniga Soomaaliya tobaadii la soo dhaafay ay wadaan in wadooyin hor leh oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ay ku xiraan kaamirooyinka CCTV kuwaas oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho